yahay eber eber 252 الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان ولا لهيجا أشراف حسن حسين وأن إذين وذا السلامي سلام كدب ولا ليال وولا الكين إذين جعل أستاذ ليبان شريف جمال الدين الجيلاني الحسني، إني أحبكم في الله، إلهي درتي أيان إذن جعلهي ما دام آن النحي الأخوة في الدين والنسب، دادكو ولا لو الدين تئي النسبك. انت مركان كغدو ولا ليال رن أهانتي shirkan ilaahay ha nooga dhigo shir barakaysan oo walaalaha qiimaha badan isku fahmaan oo afkaartooda ilaahay mideeyo insha allahu tacaala. walaalayaal, sidaad la socotaan maalmahan dambe waxaa socda ololo ballaaran ayaa socda. runtii ololahan waxaa la aasaasay 25 bisha 3 2016. wixii ka dambeeyay run ahaantii ololahan si xoog leh ayay u socdaan dal iyo dibadba. walaalahana aad bay u soo dhaweeyeen hawshani ee mideynta ah. runtii hawshani waxaa bilaabay dad qalbi wanaagsan oo ilaahay ka baqaya oo daacadnimo ku dheehan ayaa bilaabeen. runtii halku dheg ayaa waxaa laga dhigay awalan al-ikhlaas, ilaahay dartii inaanu ku wadno hawshaan anagoona dad kaga heebeysanaynin. marka labaad isbarasho, walaalaheena ahlu beytka fi anxaa ilcaalam ayay ku daadsan yihiin. in aan isbarno ayaa qodobkeena labaad ahaa. qodobkeena saddexaad isfaham. walaalayaal, dadka hadday isfahmin waxba ma wada qabsan karaan. dadkeena asharaafta horay ayaa loo soo wareeriyey. awow ayaa laga soo ayaa la waday, waxba waa lagu keeni waayey. run ahaantii waa laga soo gudbay waxaasoo dhan. dad baa jiray hataa oo ashraaf xasan iyo xuseen ku qaraaban jireen. dadkaasi waa laga soo gudbay. dadkeeni way jahwareereen. run ahaantii markaanu aragnay howlaha faraha badan jira awgeedoo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu ilhaamiyey inaanu hawshaan aanu qabano. dadka inay isfahmaan waa muhiim. tan afraad midnimo.